dhacdooyin ka mid ah kuwii lagu diiwaan geliyay buugga xusuus qorka dunida ayaan soo qaadan doonaa qaybo ka mid ah. Boqoradii dibqalooca Kanshinai Katiko waxay ku nooshaa dalka Thailand. 2 jeer ayay u tartantay World Guinness Record-ka wayna ku guuleysatay halka markii koowaad ay ku tartamaysay in 3 daqiiqo iyo dhowr sekumood ay afkeeda ku haysay nooc ka mid ah dibqalooca oo waliba ku ugu sunta badan ah ee ayadoo nabad qabto ay ka soo saartay afkeeda. Halka markii labaadna ay ku tartantay in muddo 30 maalmood ah ee qol dhala ah midkiisa 12 gaarayo kumanaan dibqalooca ay kula xariisneed. kadibna 33 maalmood ay soo baxday ayadoo nabad qabto oo caafimaad qabto. Saasana loogu magac daray boqoradii dibqalooca. Haweeneyda ugu lagu hadheer dunida waa 17 jir ku nool dalka Mareykanka gobolka Texas. Dhirirka lugteeda waxa uu gaaraa mitir 34 sentimitir ayuu dhirirka lugaheeda gaaraa halka dhirirkeeda uu kor u dhaafayo 2 mitir. Gabadhan familkooda ayaa waxay leeyihiin hidde-side dhirir ah oo familkeeda aad u wada dheer oo dhirirka waxay dhaxal u leeyihiin. Ayada laakiin waxay ka soo gashay qaybta qofka ugu lugaha dheer ama qofka ugu adimaha dheer dunida. Islaantii ugu cidiyaha dheer dunida waa 80 jir ku nool Mareykanka waxa ayna buuggan xusuus qorka ama World Guinness Record-ka u soo gashay inay tahay qofka ugu cidiyaha dheer dunida oo 30 sano cidiyaheedu waxay ku waday korin kaliya maba jari jirinba. Haddii ogaan lahayd waxa sun cidiyaheedu ku xareysan ma wadaysateen. World Guinness Record waxba kama doonteen ee cidiyaha iska nadiifin lahayd. Way ku guuleysatay walow markii dambe laga saaray waxaana looga saaray shil ay gashay ayaa keenay in cidiyaheedii ay burburaan. Saasana looga saaray World Guinness Record-ka. 28 jirkii moolada ahayd waxay markii ugu horeysay lagu arkay bandhig ka dhacaya dalka Moscow dalka Russia caasimadiisa Moscow bandhig ka dhacay ayaa markii ugu horeysay lagu arkay 28 jirkan Julia Gentle. Gabadhan waxa ay hebad u leedahay oo Ilaahay awood u siiyay in jirkeedii sida mooladii oo kale ama mooladii oo kale inuu jirkeedii u laalaamo oo qof aan laf ku jirin camal ay u dhaqanto. Sidoo kaga muuqata ay gabadhaas samaysaa waa waxyaalo aan qof caadi ah sameey karno mustaxiil ah. Waa hebad Ilaahay u siiyay waxa ayna tartanka inay taas naqataa muddo dheer ugu soo jirtay tababar iyo training markii dambana waa ku guuleysatay. qof walba hamigu leeyahay aakhir waa gaaraan. Kim Cotman ayadana islaantan 2007 ayaa loo diiwaan geliyay World Guinness Record-ka inay tahay qofka kaliya indhihiisa banaanka u soo saari kara celin kara. oo waxay awood u leedahay in indhaheeda ay banaanka u soo saarto dibna ay u celiso ayay awood u leedahay waxay ku nooshahay Chicago ayay ku nooshahay. Muuqaalkeena intaan ayaan ku soo koobaa. Haddii ay markii kugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo saar gamalelkan furso fiidiyowyada cusub ku soo gaaraan. Hadda hore noola joogtana like noo saar asxaabtaadana u sii share garay soo dhawaada.